kadib waxaan ku yidhi dhiiggani waa dhiiggii walaalka. wuxuu igu jawaabay haa. kadibna waxaan ku yidhi kani waa dhiiggii aabbaha iyo weliba dhiiggii hooyada. adoo iga raalliya wax ma ku weydiin karaa? wuxuu igu yidhi weydii. waxaanan ku yidhi iska seexo, beritoole kolley siqraddu way kaa bixiyo caadi ayaad noqon doontaa. weliba waxaad ogaan doontaa inaad dishay walaalkaa kaa yar. markaasi ayaad ogaan doontaa dareenkaagu sidaa uu noqdo. markaasi indhahaaguna ilmadu sidaa u burqan doontaa. waxaanan fahmay wakhtiga hadalkaygu inuu raad ku reebay. arrintaas ayaa saamaysay. waxaana ahaa hadal isaga waana ku ah. wixii intaa ka dambaysay ninkani waxau ahaa mid markasta soo booqda, ilaa iyo maalin maalmaha ka mid a uu soo bandhigay inuu raaco masaajidka. waxaana aad cajiib igu ahaa oo aan rabay inaan ogaado dadkan masaajidka qabanaya badani waxay ka samaynayaan gudihiisa inaan ogaado. haddaba sanadku markuu ahaa 2001 Mutaac waxa uu soo bandhigay inuu geli doono diinta Islaamka, sidaasna waa ku galay. sidoo kale 3 qof oo ka tirsanaa kooxdiisa ayaa ku soo islaamay isaga sababtiisa.